السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين وحد الله هاي فيد وناكسن كسول وادا إذا عدي راديو روشيك لما أنا خيارتها دافعها الدنيا كلا جوكتا هدي الله يدمايو برنامجكن بروح نكون فلانقين دونا هدي لهاي راهدو إسكاش قاعدين عامل التريقة يهشيسكا أي قارين جمهورية السوماليلان iyo maamulka John Biden ee dalka Mareykanka heshiiskaas oo qalinka ku duugay madaxweynaha Somaliland iyadoo dhinaca dowladda Mareykankana uu waxa weeye ugu duugay ku-xigaha xogayaha gaashaandhigga ee Mareykanka oo weerinayo taliyaha guud ee ciidamada Afrika ee la yiraahdo Africom oo isna goobjoog ahaa إذا عدى يا حكتها سيدي اللو ذاكتي وحنفلا يا لباها بين كور ميهد مركي دي سو قرطي مدحوريها السومالي عنو سايحي سلق ملتري لكن واحد إلهي مهدي لما أنت من حكتي ما تهشين أما ميريه قريو إن إسكاشي ملتري ورسميه ودينا أمنيقها ودحمري سومالي لان يطلق مريكنكا سيدو كلانا سومالي لان سي طلق مريكنكا سلق ملتري وحنفلا يا ووالكو دي كسو عين دونا إناي لما هبين كور I think so in ahead ma filaya markii idaacadu xogta sidii loo wadaagtay bal waxaynu markaa falanqeynaynaa iskaashigaas militariga iyo amniga ee Mareykan iyo Soomaaliland dhex maray muxuu Soomaaliland soo kordhin karaa bal arrintaas ayaynu falanqeyn doonaa haddii Ilaahay yiraahdo fadlan sii share gareeya faafiya dhammaantiinba haddii alla idmo عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين با فيديو وناكسن هالكا يقلا سعوتان واذا عدي راديو روشيك كلانتي كلا اي وقت كلا او حيسله دمانتين با خيارتان وهودا كودا حديدنا برنامجka waxaan ku falanqeynaynaa hadii alla idmo heshiiskii taariikhiga ahaa ee ay wada galeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland iyo qaybta amniga qaranka ee Mareykan iyo sidoo kale taliyaha ciidamada Africom la yiraahdo ee dalka Mareykanka u qaabilsan qaaradda Afrika iyo sidoo kale wasaaradda gaashaandhigga uu ka socday ay ka socotay ariidaahdo ay ka socotay gabadha ah ku-xigeenka xogayaha ama wasiirka gaashaandhigga ku-xigeenka oo ah dalka Mareykanka oo qalinka lagu duugay in Somaliland iyo dalka Mareykanku ay iska kaashadaan dhinaca militariga halkaas oo madaxweynaha Somaliland uu ku saxeexay in dalka Mareykanku ay waxa weeye ay soo degaan arada Somaliland oo saldhig militari ay ku yeeshaan xogaha hadeer soo baxaya ama media ku arkaysaan ama hadeer la falanqeynayo waxaan filayaa in idaacadu horeydii la wadaagtay heshiiskaasi sidii uu dhacay laakiin waxaan ku falanqeynaynaa oo inuu eegaynaa maxaa faa'iido ugu jirta in heshiiskaasi Somaliland military ahaan iyo istiraatiiji ahaan iyo iskaashiga in Somaliland dawladdii adduunka isku dhigaysay in leer gareynayso iyo Somaliland ay heshiis rasmi oo toos oo aan laga tashan Soomaaliya ama ka madax bannaan inay Somaliland wada galaan waqtiga kan maxaa keenay maxaa faa'iido ugu jirta maxay naga saacidaysaa dhinacii dawladnimada iyo aqoonsiga Somaliland 32 sano ay raadinaysay in ay halkii adduunka isu dhigaysay ama inoo sheeganaysay Ilaahay waa wax maamulayay adduunkan iyagu maamulaan oo ay qorsheeyaan arrimaha siyaasadda iyo amniga iyo difaaca iyo arrimaha iskaashiyada caalamka dhexmara duwalkan aynu marxaatiga ka nahay hadii aynu dunida saddexaad oo iyagu sidayna yiraahdaan aynu ka tirsanahay khaasatan qaaradda madow ee Afrika kaga siinaalay Afrika waliba geeska Afrika aynu inagu naalo bogcadaasi Ilaahay ina dhigay hadii alla idmay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland ayaa ogeeyay inuu safar ku kala bixinayay carro Mareykan halkaas oo kula kulmay wufuud kala duwan oo waxa weeye ka socoto xukuumadda Mareykanka waxyaabaha fariga ah ee ka soo baxay kulankaasi madaxweynuhu la lahaa gabadh la yiri waxay ahayd ku-xigeenka kaaliyaha arrimaha Afrika u qaabilsan dalka Mareykanka oo iyadu Twitterka ku soo qortay in dalka Mareykanka marka foreign policy iyo waxyaabaha laga hadlayo inay Somaliland ay soo dhaweynayaan xukuumadda madaxweynuhu hogaaminayay iyo wasiirada laakiin still dawladda Mareykan ay policy ay tahay in wax la yiraahdo Somali hay meesha ku qorqortay ayna tiri aanu Mareykan nahay waa sayid u dhigaysay waa soo dhaweynaynaa wafdiga madaxweynaha Jamhuuriyaddu uu hogaaminayo Somaliland laakiin aasaysteedahan
as a foreign policy ahaan as a Maraykan ahaan still waxaanu taaganay waa sidii gabadheeda ayna tiri weeye laakiin wixii ka qabsaday bahalkeedii la wadaagi doona bal hadalkeedii wuxuu ahaa still waxaanu ku eegaynaa Somaliland siyaasadii ahayd Somali one policy laakiin maxaa ka qabsaday waxaa markiiba ku kacay nimankii Congress-ka iyo Senate-ka iyo qolooyinkii amniga qaranka iyo wasaaradii gaashaandhigga oo gabadhii daaqada kala baxay iyagoo si cad ugu sheegay in Somaliland iyo Maraykan heshiisyada ay wada galayaan si toos ah ama aanay cidnaba aanay kala tashanayn taasoo markii dambe iyaduna raaligelin ka samaysay arrintaasi oo macnaysay inaanay uga jeedin inay Somaliland ka mid tahay Soomaaliya oo taa runteedu ay ahayd arrin cajiib ah laakiin barnaamijkan bal waxaan ku falanqeynaynaa Maraykan oo aad ogtihiin in maanta uu ku jiro challenge mid dhaqaale iyo mid military iyo mid istiraatiijiyad ahaanba inuu maanta Somaliland ka dhigto garab weyn ama saaxiib weyn oo waxa weeye uga soo kordhay geeska Afrika ama guud ahaan qaaradda Afrika khaasatan East African-kan aynu dayno ka mid ka nahay iyagoo hore u joogay Djibouti Ethiopia oo ka burburtay oo China kala wareegay reer galbeed ahaana uu qaabilsan yahay xagga maaragtay Nairobi iyo Kenya dawladda Ingiriiska laakiin Maraykanku aanu involved ku ahayn arrintaasi dalkaasi laakiin ay ahayd xaruntiisu Djibouti-na uu ka saaray dalka la yiraahdo China maadaama uu khatar ku noqday markii uu base ka agsameeyay isla dawladdii Maraykan base-ka ay ku lahayd Maraykan taasoo markii dambe khasabtay inaanay xitaa badii Dooraale ama dekadii Dooraale ee ciidamada Maraykanku ay wax kala soo degi jireen laga leexiyo oo ay diyaarado kaliya ku yimaadaan kadib iyagoo ka baqaya sirdoonka dalka China oo mar tashuush waxaan la yiraahdo haddii la idmaayo cyberka la yiraahdo ay ku sameeyeen diyaarado Maraykanku leeyihiin ama laserka ay u isticmaaleen taasoo khatar gelisay pilots ka tirsan ciidamada cirka ee Maraykanka oo khatar ku noqotay laakiin Somaliland ay u noqotay ishii kaliya ee oxygen-ta dhinaca siyaasadda ee geeska Afrika ama waxa weeye nafta ku soo celisay dawladda Maraykan markay heshay base kale oo ka fiyow ama ka madax bannaan China iyo Rush iyo qoodaha ay siryanayaan taasoo Somaliland u noqotay fursad weyn oo dhinaca markaad eegto arrimaha siyaasadda arrimaha dibadda iyo dawladnimada oo maanta Somaliland ay soo dhigayso inay ku leedahay Maraykan ama reer galbeed inay soo dhigayso haddii la idmaayo saaxiibka weyn ee Afrika khaasatan geeska Afrika taasoo ay ka hormarayso dalka Ethiopia Djibouti Kenya Uganda dhammaantoodba ay Somaliland noqotay in wafdigii Somaliland ay hogaaminayeen ay u kala dheereynayeen inta structure ee dawladnimada Maraykan ay ku dhisan tahay hadday tahay guddida amniga qaranka Maraykan oo la aasaasay 1973 iyo sida oo kale runtii wasaaradda gaashaandhigga iyo waliba guddida arrimaha dibadda iyo difaaca qaranka Maraykan ee sanadka aan idhaahdo Congress-ka Maraykanka oo dhammaantood waxa weeye si kaliya laaba u soo dhaweeyay idinku arkayay shalay oo kaliya in 9 xildhibaan oo ku jiro gudoomiyaha guddida arrimaha dibadda iyo difaaca qaranka Maraykan ay qoreen proposal ay dawladda Maraykan waliba State Department-ka qoranka foreign policy-ga ay si cad ugu sheegeen in Somaliland tahay dal madax bannaan oo ay tahay in si degdega Somaliland xiriirkeeda kor loogu soo qaado lana bedelo policy-gii hore ee Somali policy-geedii ay Maraykanku kula dhaqmi jireen oo berigii jamhuuriga dalka maamuli jiray ama ninkii loo jiray Bush isagoo isticmaali jiray dual waxa la yiraahdo dual policy oo Somaliland iyo Soomaaliya uu kala hayn jiray markii dambana markii islaantii timid Hillary Clinton odagii madaxweynaha hore uu qabi jiray ay arrintaasi meesha ka saartay maadaama oo uu yimid madaxweyne markaasi isagoo dimuqraadi ah oo ninkii loo jiray Barack Obama laakiin hadeer ay runtii qolada jamhuuriga ee xagjirka ah ee waliba jaangooye siyaasadda arrimaha dibadda iyo difaaca qaranka Maraykan ay si aad ugu looban gareynayaan in Somaliland ay haato dal madax bannaan waxaa maalinta bariya oo idaacaddu idin sii horumarinaysa xogta xasaasiga in madaxweynaha Somaliland uu parlamo ku leeyahay magaalada xarunta ganacsiga Maraykan khaasatanna la yiraahdo xarunta diblomaasiyadda maadaama
oo ku yaalo guriga ay isugu yimaadaan quruumaha midoobay sida u taqaanaan ama United Nationska halkaas oo sidan xogta ku hayo madaxweynuhu la kulmi doono ku-xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay sida oo kale dowladda Mareykanka iyo runtii wadamo aad iyo aad u fara badan oo ay kamid yihiin dalka Brazil ambassadorkooda halkaa u fadhiya dalka waxa weeye Cuba haddii la idmaayo Ingiriiska Mareykanka France wadamo aad iyo aad badan jalwika uu buuxo laakiin arrinta aynu hadda diiradda ku saarayna waxa weeye Somaliland maadaama oo ay heshiis military iyo iskaashi dhinaca amniga iyo istiraatiijiyadda ay wada galeen Somaliland maxaa faa'iido ugu jirta arrinta aynu doonayno inaan falanqeyno oo aynu yara dul istaagna arrintaas weeye iyo haddaan idiin qadimo Somaliland waxay baahi weyn u qabtay oo maadaama oo ay ku taalo mandaqad ololeysa oo inta badan ay khatar ku yihiin qolooyinka la yiraahdo piracy-ga ama budhcadbadeeda saa u taqaanaan qolooyinka argagixisada iyo sidoo oo kale waxa weeye waxa la yiraahdo human trafficking oo adduunka oo dhan khatar ku ah oo la dagaalamo waxaas oo dhan hadana waxa ka sii khatar badan awoodaha aanay Somaliland sinaba isaga caabi karaynin maadaama oo ay bogcadda ay Somaliland ay wax weeye ay ku taalaa ay tahay meel istiraatiijiya oo ay kala hororsanayaan wadamada galbeed iyo bari taasoo Somaliland mar walba khatar ugu jirto inay reer galbeedka ka fogaato haddii ay ku dhacdo gacanta China ama ay ku dhacdo gacanta Russia ay khatar iyo qrinqiir gelin karto siyaasadda arrimaha commercialka iyo ganacsiga adduunka iyo isu socodka maadaama adduunku waxa weeye uu bariga galbeed kale yahay oo aad dareemi karayso iskaashiga Mareykan iyo aan ilaahdo Russia iyo China dagaalka hadda Ukraine ka socda inuu Russia uu leeyahay waxaan u yeelanayaa walaalkaygii China oo Djibouti u jooga haddii Ruushkuna u yimaado Somaliland waxaad dareemi karaysaan markaa in ay siyaasadii arrimaha dibadda iyo tii amniga guud ee caalamka khaasatan reer galbeedka iyo balansigiiba intuu lumo ay qeyn geli karaan qolooyinka reer galbeedka haddii ay tahay kuwa Europeanka iyo hadday tahay kuwa maaragtay North America degan intuba taasoo waxa weeye keentay in wafdigii madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland halkaasi joogay loo kala dheereeyo la kulankooda iyo la gelista maaragtay heshiisyada kala gaargaarka laakiin haddana khuseeya interest guud ee ay ka wada duulayaan dalka Mareykan hay'adihiisa kala duwan guddiga amniga qaranka guddiga horumarinta guddiga waxa weeye arrimaha dibadda ee Congress-ka haddii ay tahay waxa weeye wasaaradda gaashaandhigga lafteeda waxaa soo culaysa in madaxweynuhu waxa weeye ay kulan iyo fadhi wada yeeshaan waxay idin tusaysaa sida ay maanta Somaliland u tahay wax runtii aad iyo aad ay dawladaha reer galbeedku ugu baahan yihiin waxyaabaha iyaduna runtii cajiibka waxa kamid ah loobinkii ugu weynaa oo dawladda Soomaaliya dawladda sahaal ay kasho oo waxaan dhageysanayay ninkii u fadhiyay United Nations dawladda Soomaaliya oo lahaa waxa weeye waxaanu galaangal la sameyn doonaa si aanu arrinta uga hortagno oo unionka Soomaaliya loo sii ilaaliyo dawladaha saaxiibka la Mareykan marka dawladaha Somaliland Mareykan walaalaha la ama ay siyaasad wadaag yihiin ee galaangalka loo sameyn kara toloma imaaraadkana way kala tageen Sacuudi ba filmaayo wadamada islaamka jaamacatul arabba ma wadamada waxa weeye Afrikaanka qaarkood Mareykanka saaxiib yihiin oo saameyn ku yeelan kara inay duwi karaan siyaasadda Mareykan filmaayo inay jirto waxa weeye dawlad maanta Mareykan arrimaha danteeda iyo istiraatiijiyadeeda ku qancin karaysa iyagoo Soomaaliya wakiil ka ah ama Soomaaliya midnimadeeda ilaalinaya inay hor istaagi karaan heshiisyo noocaas oo ay Somaliland gasho idinkoo arkaya dhinacyadii kalena runtii inay maanta ay runtii ay kaba quusteen Somaliland soo hadalkeeda iyagoo qaarkoodna cambaaraynaya dawladda Mareykanka oo u dhigaya Mareykanku inuu u dhex marayo aqoonsi uu Somaliland siiyay hay'adda la yiraahdo heritage background-keeda siyaasadeed sidaad wada ogtihiin waa maskaxdii iyo waxa weeye aqoontii Mareykan iyo jaangooyaashii saamileyda siyaasadda ee dalka Mareykan oo isugu waday waa madaxweynayaal hore oo professors ونمان سياسة analyze كريه ونمان research كسبيه ماركتي عالمك وambassadors هره وحوي وضيال سرد كوتشري أما كونغرس كمدها أما دولة دوسو شقي أو كسو شقي أما قيبته أمنية أما
waxa weeye siyaasadda arrimaha dibadda qolooyinka day heritage meesha u fadhiya waayo waa 9 milyan wey almost 1 billion baa budgetkeedu yahay sanadkii marka waa dareemi karaysaan culayska iyo shaqada ay dalka Mareykan u hayso hay'adaas la yiraahdo heritage marka imika qaar baa falanqeyntooda markaad eegto qaar iska dhigaya maaragtay siyaasi waaweyn oo Soomaaliyeed oo ama Nairobi ha joogeen ama Muqdisho ha joogeen ama Gadar jaamacadaha ka dhigeen marka arinta falanqeynayaan waxay leeyihiin Mareykanku wuu isna sakhaad buu ku jiraa because of Somaliland waa aqoonsaday laakiin wuxuu doonayaa inta processka sharciyadu ay ka dhamaanayso ama la isu bareerayay ama wadamo kala dabada soo taabanaya ama dhabarka soo taabanaya inuu u soo dhexmaro haddii la idmaayo heritage soo dhexmaro hore waxaynu aragnay dowladda Sultanka Imaaraadka Carabtu iyadoo Somaliland doonaysa inay xiriir rasmi oo dowladnimo la yeelato oo bilateral agreement oo two government ama two states equal ah ayaa waxay noo soo dhexmartay DP World bay ku soo dhuumatay ilaa markii ugu dambeysay ay sii waday maxaa la gaaray in la yiraahdo kaarka dhalashada Somaliland Imaaraadku waa aqbalay baasaboorkii Somaliland Imaaraadku waa aqbalay ambassadorkoodii buuxay keeneen kii inaga ganacsiga xafiiskani waxay ka dhigeen maaragtay waxay u dalacsiiyeen safaarad buuxda meel walba waxay la taageen Somaliland waa dal yani siyaasadda iyo dawladnimada igu soo bood maaha ama isku soo bood laakiin meelo badan iyo journalist fara badan baa la isu soo maraa marka doonayso dal ujeedada iyo danta aad ka leedahay walkii ay Soomaalidu ku oran jirtay Ingiriis meesha uu awr marin karaayo irbad buu ku dayaa marka dhamaantii waxaan leeyahay soo dhawaada khiyaarta qiimaha badan sideedii la muuqataa heshiiska dhinaca militariga iyo iskaashiga iyo istiraatiijiyadda ku salaysan ee Somaliland iyo Mareykan waa soo qabanaya dhamaantii nabarku dushoodii ku qoran yahay shaashadan waa ka soo qabanaya haddii la idmaayo si share garee faafi noo share garee dhamaantii عليكم السلام بس ما سوى هذا رمانتين إن بدو واحد أركيسين قروينكي نبض إيه النرال أما دولتي تارك درنايد الصومالية قروينكي سبود جرين تري Somaliland نعيب كدين تبدون دو بحدا فيه إن بالبا بيكتر يصور يو إن أراه ليتا يو بروباغاندو بيبناك اللي تاجناي لكن هذا روح مقدان إنه كقوستين حقا وشد Somaliland يدعايدين تيدا iyagoo intooda badan hadeer ka hadla uun arrimo iska maaragtay runtii loo kala oo ay Somaliland ka duwayaan xaqiiqadka jira haddii la idmaayo laakiin inaga waxa filayaa hello okay وين كاودي قاعد وحوي وحكحوا ما في ليا
telefoonka ka xumo filaya way marka waxa weeye qolooyinkii dee Somaliland inta badan xumaantoodu ay buuxdhaafisay ama propagandadooda Somaliland aad iyo aad ugu dheereyn jiray maanta halka ay dee ka taagan yihiin arrimahaas waxaad ka dareemi karaysaan haddii ay eegtaan waxyaabaha ay qorayaan oo inta badan u muuqda tawaawac iyo itaal darro ka muuqata maaragtay go'doonka siyaasadeed ee ku dhacay laakiin markaynu inagu Somaliland ka hadlayno waxaan oran karaynaa heshiiskaas tusaale ahaan heshiiska iskaashiga militariga waxyaaba maxay Somaliland ka faa'iiday calculation aynu dhammaantiin isweydiin karayno oo tusaale ahaan waxyaaba ay ka faa'iiday noo muuqda ama ay ka faa'iideyso ama danta ugu weyn ee Somaliland ay ka leedahay heshiiskaasu waxay ka faa'iideysaa dhismaha militariga heshiiska iskaashiga militariga dhismaha military base-ka oo aynu ka heli karno shaqaale ku dhow 10,000 oo maaragtay shaqaale tayeenta ciidamada Somaliland waa faa'iido Somaliland heshiiskaasi ugu jirta dhismaha xarumaha ciidamada qalabka sida ee Somaliland faa'iidooyin ugu jira way wasaaradda arrimaha dibadda ama policy change ka dhacay oo wax weeye policy change wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka oo lagu amray arintaasu waxyaabaha ka faa'iideyno mar haddii siyaasadda arrimaha si la bedelay waxyaabaha ay dee noo fududeynayso waxa kamid ah tusaale ahaan oo aynu helay oo xaqiiqa oo inoo soo maaragtay inoo soo gacanteena soo galay hadeer ama wafdigeenu daa ay maaragtay gacanta ku dhigeen waxa kamid ah Peace Fiber Optics-kii oo maaragtay oo berbera ah maalgashiga warshadii sibirka oo runtii Somaliland waxa weeye ugu kacaysa qiimo aad iyo aad maaragtay u weyn oo dib u dhiska qaranka Somaliland ka qayb qaadanaya way jireen oo waxyaabaha madaxweynaha Somaliland runtii uu u sii kaheeyay tijaartii dalka haday tahay Dahabshiil Ilaaw Siciid haddii la idmaayo Telesom inaynu maanta waxyaabaha inta ka soo faa'iidno waxa kamid ah financial accessibility-ga oo waxa weeye maalgashigii waxa weeye warshada sibirka maalgashiga pro economic wax la yiraahdo oo dhamaantii wada dareemi karaysaan kaas oo aan isugu xuduud lahayn Somaliland maxay resource leedahay the livestock-kii baa inagu waxa weeye aynu qani ku nahay wuxuu dhagaxday baynu haynaa teemankii baynu haynaa dahabkii baa yaala resource-ka dalkeenu waxa aad iyo aad u cajiib still aan helin de maalgelin iyo suuqyo caalami ah marka waxa la yiraahdo pro economic oo waxa aad iyo aad u qiimo badan oo Somaliland maaragtay ay helayso waxa kale oo ay Somaliland ka soo faa'iiday kulankaasi waxa kamid ah ku xirista Swift code-ka waxa la yiraahdo Swift code-ka waxa weeye in Somaliland baanankeedu ay helaan ama private ha noqdeen ama public ha noqdeen inay helaan code caalami ah oo the Somaliland guarantee in damaanad qaata ama waxa weeye aynu leenahay ilaaqaad xisaabeed iyo wax isu gudbin iyo waxaan international transfer code-ka waxa la yiraahdo in Somaliland ay heshay waxa kale oo iyadoo faa'iido weyn inoogu jirto oo heshiiska madaxweynaha iyo socodkooda iyo wafdigaasi ay Somaliland gacanta ugu soo dhigeen oo ma aynu ku guureysanay maalgashiga guryaha yani dadkeenu waa dad aan dhaqaalahoodu burnayn maadaama aan dalkeenu lahayn warshado fara badan iyo dad badan oo shaqaala ama la shaqaaleysiiyo ama waxaan la yiraahdo yearliga capitalka economically ay dadkeenu ay tahay wax aad iyo aad u hooseeya sanadkii inta ay ku shaqeeyaan aynu u baahanay inaynu helo guryo jaban tusaale ahaan qofku uu de wax yar isaga bixin karaayo guri intuu waxa weeye uu helo muddo yar uu de muddo tusaale ahaan 10 sano 15 sano aad isaga bixin karto waxa weeye waxyaabaha heshiiskaasi runtii inoogu faa'iidaa waxyaabaha kale oo iyaduna waxa weeye qaybta waxbarashada iyo ciidamadeena iyo sidoo oo kale shaqaalaha iyo postgraduates-keena dadkeena jaamacadka ka baxa waxyaabaha gacanta inoo soo galay ee aynu helay ee aynu ka soo faa'iidnay socodkaasi madaxweynaha waxa kamid ah oo heshiisyada la galay kamid ah scholarship
oo scholarshipskaasi waxa weeye ciidamadeennii inay training helaan oo scholarshipka ay qayb ka noqdaan. dhalinyar fara badan baa madaxweynuhu soo saaray oo shaqo qarana oo kulliyado fara badan oo dhinaca militariga hadday noqoto kuwa technicalka engineeringka kuwa kale waxa weeye ku takhasusaya hubka iyo noocyadiisa. waxyaabahaasoo waxa weeye aynu u baahannahay inaynu helno waxa weeye dad maaragtay aqoonteeda leh, taasoo imanaysa in aynu kasoo faa'iidnay oo ciidamadeenu sidoo kale shaqaalehen waxaanu u baahanay. tusaale ahaan wixii manualka maanta waa laga tegay, bugaagta wax lagu qori jiray, adduunyada waa digital. marka maanta waxaanu u baahanay wax computerizing, wixii waa in on record noqdaan. waxa weeye shaqaalaheena dowladda in la tayeeyo. shaqaalaha waxa ku jira shaqaalahu ciidamadeenna qaranka waxaanu u naqaano kuwa qorigiisita, laakiin waxa jira kuwa xuraanka, kuwa waxa weeye ilaalinta xogta ciidanka, kuwa tababarayaasha oo shaqaale ciidamada ka mid ah. xafiisyada ciidamada inay helaan tababar aqooneed oo waxa weeye modern oo waqtigan maaragtay la shaqeynaya. waxa kaloo iyaduna waxa weeye faa'iideynoo ah oo gacanta soo galay intii kulamadaasi ay socdeen. waxaa la yidhaahdo dhalinyarteennii jaamacadka ka baxay oo dhammaantood waxa weeye maanta mid waliba uu haysto ka ugu hooseeya diploma uu yahay. marka bachelor degree-ga iyo laga tago post graduate-ka iyo graduatorska, marka inaynu kuwa laftoodu ay helaan fursad ay aqoontooda kusoo kororsan karaan haddii aan la idmaayo. waxa weeye maalinta berriyana madaxweynuhu waxa uu kulan ku leeyahay xarunta New York oo ah xarunta ay ku kulmaan wadamada kala duwan ee caalamku. xaruntoodu ay tahay halkaasoo kula kulmi doono laguna soo dhaweyn doono sida aad arkayseen Capitol Hill oo xaruntii baarlamaanka dalka Mareykanka Congress inuu maanta xalay aan raahdo oo madaxweynaha qaranka anaga habeen bay noo noqonaysaa qolada Europe, laakiin iyaga maalin bay u ahayd in Capitol Hill lagu soo dhaweeyay oo guddiga arrimaha dibadda ay ku casuumeen iyagoo markii dambena qada sharaf ugu sameeyay haddii la idmaayo halkaas in madaxweynaha Soomaaliya uu martiqaad ku leeyahay xarunta qaramada midoobay halkaas kula kulmi doono haddii la yiraahdo ku-xigeenka xogayaha guud ee qaramada midoobay, safiirro kala duwan oo wadamo kala duwan wax weeye matalaya. marka waa dareemi karaysan in la siiyay fursad intaa leeg oo loo fududeynayo dowladda Mareykan ay garba hayso oo ay u fududeynayaan albaab walba oo ay isleeyihiin Soomaaliya waxba kaga xidhantay tii qaramada midoobay ahayd, qolooyinkii ganacsiga. dowladda Mareykan iyadu shaqadeeda way dhamaysatay, hadday arrimaha dibadda tahay, hadday arrimaha maaragtay gaashaandhigga tahay. waxyaabaha kaloo iyaduna cajiiba in kulankii madaxweynaha iyo wasaaradda gaashaandhigga oo wax weeye iyo taliyaha guud ee Africom ciidamada Mareykanka ee Afrika ay halkaas ku kulmeen heshiiskaasi bayska ahaa ay Soomaaliya siinaysa halka ku kulmeen. waxay ina tusaysaa dhammaanteen sida Mareykan u danaynayo uu raaliga ugu yahay ee ugu faraxsan yahay inay heleen walaal Afrikaana oo geeska Afrika Somaliland la yiraahdo. xildhibaanada nimankii soo shaqeeyay ee ka soo shaqeeyay wadamadeena dariska iyo guud ahaan caalamka ee dowladda Mareykan siyaasadda arrimaha dibadda ee darajadooda ama safiir ahaato ama safiir ku-xigeenata ama kaaliyaal hore oo wasaaradda ka shaqeynaya arrimaha dibadda ha noqotee dhammaantoodba ay u riyaaqeen oo ay ku boorinayaan in maaragtay ay Somaliland iyo Mareykan ay ku faraxsan yihiin maanta heshiiskaas iyo heshiisyada faraha badan ee dhacay. dhinaca kale de qolooyinkii iyagu jariska xoorka ahaa iyo kuwii Soomaaliya iyo kuwii maaragtay Somaliland doo arkaya maamul goboleed oran jiray ama Isaaqistaan u yaqaanay meel Isaaq iska fadhiyo de maaragtay geeliisa ku raacdo. waxaan filayaa inay maanta ay candhuuftooda dib u liqeen. waana guul madaxweynaha Somaliland taariikhiya oo maanta aynu oran karayno halka aynu gaadhnay waxay ahayd maalin loo baahnaa iyo waqti loo baahnaa. waxyaabaha iyaduna mucjisooyinka dhacay waxa kamid ah markii madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland iyo dowladda Mareykan ay halkaasi wufuud ay ku shirayeen iyo labada wafdi ama wafdi mas'uuliyiinta Mareykan iyo wafdiga Somaliland waxa geeska Afrika marayay oo ay tahay inaad idinka liftineesha ku haysaan. ergeygii gaarka ahaa ee Beijing ama dowladda China ay u soo magacowday geeska Afrika waxa uu shirar kula lahaa magaalada Djibouti madaxweynaha Djibouti, waxa uu ka degay Eritrea Isaias Afwerki,
waxa uu ka degay magaalada Addis Ababa Dr. Abiy waxa uu tagay dalka Kenya oo uu ku sugan yahay baan filayaa maanta waxa weeye taasoo iyaduna dabka ku sii shiday ama baasiinka ku sii shubtay sida ay runtii Mareykan uga maageen yani culayska uu China saaraya geeska Afrika taasoo waxa weeye Somaliland fursad weyn u noqotay in madaxweynaha Somaliland loo kala dheereeyo oo institutionskii dalka Mareykan ka dhisnaa ama amniga ha qaabilsanaadeen ama ha qaabilsanaadeen arrimaha dibadda ama Congress-ka gudiyadooda kala duwan ha ahaadeen inay u kala dheereeyaan sidii ay u ogaan lahaayeen go'aanka rasmiga ah ee xukuumadda Somaliland iyo madaxweynaha Somaliland taasoo wax badan noo fududeysay in aynu danihii aynu lahayn aynu ka gaadhno haddii la idmaayo ujeedooyinkii madaxweynuhu halkaasi u tagay soo dhawaada mar labaad waa idaacadii radio Runsheeg yaanigo arag weerara waxaan leeyahay fiid wanaagsan soo dhawaada dhamaantiin aad soo qabanaya dhamaantiin waan arkaya Handeln ist nicht jedermann. waxaana diyaar ku ah xaddi badan oo calafka xoolaha oo arso shirkaasi waxa ku saabsanaa faahfaahisay waxa ay tiri wasiirka wasaaradda horumarinta deegaanka ee Somaliland Marwo Shukri Bandare waxa ay ka warbixisay shir muhiim oo kaga qayb gashay dalka Mareykanka iyadoo shirkaasi waxa ku saabsanaa faahfaahisay waxa ay tiri halkan maanta waxa ka dhacay shir aad iyo aad u wanaagsan ilaahay mahadi baan runtii rabbiga raxmaanka maanta ugu mahadnaqayna shirka halkan ka dhacay shirkaasi wuxuu runtii ku saabsanaa in aan ka wada hadalno hay'ad weyn oo la yiraahdo ICCF la yiraahdo inaanu ka wada hadalno sidii aanu Somaliland dawlad lahaayeen uga shaqeyn lahaayeen iyagoo caawiyana hay'adda CCF na caawiya dhinaca jiitaha aad uga shaqeeyo waxay hay'adan weyn ka shaqeysaa waxaana ku bahoobay hay'adan dad fara badan oo Congress-ku ka mid yahay baarlamaanka Ingiriiska ka mid yahay waa kooxas dhan ama ummad dhan isu tagtay oo ka hadlaysa sidii ay u ilaalin lahayd deegaanka uga shaqeyn lahayd iyo sidii ay u ilaalin lahaydba xayawaanka duurjoogta ah marka maanta casuumada halka ka dhacday waxa noo fidiyay ninka ugu sareeyay hay'adda oo nagu casuumay una yeeray partnerskooda dhowr iyo 20 dalbay ka shaqeeyaan dalka Mareykanka magaciisana la yiraahdo Associated Press waxa ka qoray socdaalka Muuse Biixi Cabdi ee dalka Mareykanka ayaa ku daabacay bog kamid ah bogagiisa isagoo soo xiganaya qayb kamid ah khudbadiisii uu ku sheegay madaxweynuhu inay guuldareysteen wadahadaladii u dhexeeyay Somaliland iyo Soomaaliya waxa kale oo wargeysku xusay oo soo qaatay weerar kamid ah khudbadihii madaxweyne Muuse Biixi uu ka sheegay in wadaxaajoodkii Somaliland iyo Soomaaliya u socday 10 sano uu ku guuldareysatay dhinacyada Soomaaliya oo muujinayay inaanay waxdana ka lahayn wadahadaladaasi taasoo madaxweynuhu sheegay inay ku qasbayso Somaliland beesha caalamka ay kala hadasho aqoonsigeeda sidoo kale waxa uu soo qaatay wargeysku hadaladii uu jeediyay munaasabadda Mr. Kevin Roberts oo ka dhacday xarunta Heritage Foundation ee Washington ee dalka Mareykanka inuu aaminsan yahay in Somaliland iyo Mareykanku ay wada yeeshaan xiriir adag oo dhow maadaama ay Somaliland ku taalo gobol ay ku jirto xasilooni darro iyo ammaan xumo xagga argagixisnimada iyadoo uu Mr. Kevin sheegay inta beddelkeedana ay Somaliland tahay goob degan oo ku taala geeska Afrika Mareykanku wax la qabsan karo oo wax wada qabsan karaan ayuu sheegay Mr. Kevin Roberts waxa uu intaas ku daray Somaliland ay tahay dal ku taagan
hagihiisa oo ku dhaqma hanaanka dimuqraadiyadda soona qabsanaysay doorashooyinkeeda muddo 30 sannadood ah balse aanay dunida inteeda badan ka warraynin sidaas awgeed waxa uu madaxweynaha Somaliland oo la doortay 2017 uu u maray aqoonsiga Somaliland taariikh kasta oo suurtagal ayuu yiri Mr. Kevin Roberts geesta kale xildhibaan Jim Risch oo mudanaha ugu sarreeya aqalka odayaasha dalka Mareykanka isla markaasina xubinka guddida aqalkaasi u qaabilsan xiriirka arrimaha dibadda ayaa ku tilmaamay xiriirkaasi xogeystay ee Somaliland iyo Mareykanka mid muujinaysa xiriirka murugsan ee ka taagan geeska Afrika isla markaasina loo baahan yahay in maamulka Biden uu saamiyo meel kasta oo ay ka geli karto arrimaha gobolka dhinaca kale madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo waftigiisii ballaarnaa ee hogaaminayay oo maalinnimadii afraad ku sugan Mareykanka gaar ahaan Washington DC ayaa kulan la qaatay mas'uuliyiin sarsare oo ka socday golaha ammaanka ee qaramada midoobay afka luqadda qaraar lagu yiraahdo National Security Council ana kulanka lagaga wada hadlay iskaashiga nabadgelyada iyo dimuqraadiyadda iyo waliba horumarinta sidoo kale madaxweynaha qaranka Muuse Biixi Cabdi ee Mareykanka jooga iyo waftigiisu waxa ay kulamo la yeesheen hay'adda caalamiga ah ee dimuqraadiyadda qaranka Mareykanka National Endowment for Democracy iyo Banka Adduunka ee World Bank sidoo kale dawladda Mareykanka ayaa xil weyn iska saartay sugidda ammaanka madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo waftigii uu hogaaminayay iyadoo loo xil saaray ammaanka waftiga Somaliland ciidamada ilaalada aqalka cad ee looga arrimiyo dalka Mareykanka iyo kuwa sirdoonka ee dalkaasi madaxweynaha Ukraine Volodymyr Heute geht mein Leben zu Ende. Ich wusste, dass dieser Moment kommen würde. halkani wuxuuna ku yaalaa bartamaha suuqa Hargeysa waxay faahfaahin kala xiriiraalinada shaashada kaaga muuqda duqa lafaha gudahooda ugu dambeyntii daawada wararka ku saabsan socdaalkii danaguurka ee madaxweynaha Somaliland ku gaaray dalka Mareykanka ayaa sheegaya inuu halkaa ka sii wato kulamo gooni ah oo uu kula yeelanayo aqalada guurtida iyo wakiilada ee dalka Mareykanka afka qalaadna lagu dhaho sanadka iyo Koongareeska mudane ka tirsan aqalka odayaasha Washington ayaa ku canaantay xukuumadda Biden inay ka laabato go'aankeeda geeska Afrika ee xaaladda calabeebiyay xildhibaan Jim Risch oo kamid ah duqeyda raqayatiinka ee fadhiya golaha guurtida ee Mareykanka ayaa goga iyo margoogta uu ku leeyahay Twitter-ka waxa uu ku soo gasangeeray qoraal uu kaga hadlayay safarka madaxweyne Biixi ee Washington wuxuu sheegay in aanay caqli gal ahayn in Somaliland loola dhaqmo sida maamul goboleed hoostaga jamhuuriyaddii burburtay ee Soomaaliweyn wuxuu sheegay in Mareykanku uu lumiyay taageerada bariga Afrika ka gadaal markii uu muhiimadda siin waayay Somaliland oo ku taala bogcad istiraatiiji ah wuxuu bitiyay kulamadii iyo isu qorlaabkii uu madaxweynaha Somaliland la yeeshay madaxda sare ee Washington ay banaanka soo dhigeen xiriirka qalabsan ee aadka u murugsan ee Biden uu leeyahay gobolka geeska Afrika wuxuu soo jeediyay in sidan wax laga dooriyo oo Mareykanku uu fadhigan uga noqdo fadhi kale isla jeerkaasna aan la sii maacuudin midnimada Soomaaliya oo beri kala hadaaftay waa sidoo hadalka u dhigay mudane Jim Risch xildhibaanka weyn ee ka tirsan aqalka guurtida ee dalka Mareykanka xubinna ka ah guddida xiriirka arrimaha dibadda ee aqalkaasi ayaa qoraalkiisa ku yiri kulamadii uu madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi wiigan la yeeshay madaxda Mareykanka waxay markhaati ka tahay xiriirka murugsan ee Mareykanku leeyahay geeska Afrika sidaas oo ay tahay waa in aynaan ku koobnaan siyaasadda ku dhisan Soomaalida maamulka Mareykanku waa inuu xiriir la sameeyo dhinacyada kala duwan ee gobolka ka jira isaguna agaasinka madaxtooyada ee Somaliland ayaa hadalka xildhibaankani ka soo yeeray ku sifeeyay inuu yahay mid wax weyn ka tari kara kana doorin doona kor u qaadista xiriirka Somaliland iyo Mareykanka inta waranay waxaanu ku darnay ma ogin wax weydiin ogaal ka sheegnay Maxamed Aadan Dirir tan iyo kulanti dambe nabadgelyo iyo way Risch la yiraahdo iyo markaad eegto in hal mar sagaal xildhibaan oo Koongareeskii sanadkiisa ugu jira oo hogaaminayay gudoomiyihii guddida arrimaha dibadda Mareykanka ee baarlamaanka waxa la isku yiraahdaa waa sidoo kale guurtida iyo waxaan isku nirahnaa iyo wakiilada iyagana baarlamaankooda waxa la isku yiraahdaa waa guurtidooda iyo aqalka hoose oo sanadka la yiraahdo guud ahaan baarlamaanku sagaal kamid ah oo gudoomiyihii guddida arrimaha dibadda Koongareesku inay warqad iyo bayaan soo saaraan oo ay ugu baaqaan dawladda Mareykan wasaaradda arrimaha dibadda inay si degdeg ah u bedesho
Somali one policy hore ay ku dhaqmi jirtay meesha ka saarto oo ay hatta inantii u qaabilsanayd kaaliyaha xogayaha arrimaha Afrika ku xigeenka u hayd oo si kaaliye ama agaasibay noolay karayna kabaha kala baxay culayska inta leeg saaray waxa dhamaantii dareemi karaysaa yani culayska uu safarkaasi madaxweynuhu uu lahaa iyo midna dalka kulamadii kala duwanaa ee uu la qaatay hadday tahay sharci dejiyaal iyo haddii ay tahay hay'adaha kala duwan ama ha ahaadaan kuwa dimuqraadiga ama ha noqdeen kuwa maaragtay republicanka jamhuuriga ama ha noqdeen hay'adaha kale ee iyaguna ku hawlan ama ka shaqeeya amniga iyo istiraatiijiyadda Mareykan midna dalkiisi oo talaabo kastoo qaado waxba ka imanaya taas waa keenaysa runtii in maanta aflabadii daan ay dhawaaqaan qoladii dawlad lagu intaayay sida maaragtay maraboobta nagu marnayd emission istaagnay oo jirtay xiriirkan u jarnay maanta waxa weeye baarlamaankii shalay Ingiriis bay noogeen maanta odayaashii iyo xubnihii kale ee dawladda Mareykan xirdajiyaashu ahaa baalbaabkii Washington House garaacay White House bay garaacayaan oo ay leeyihiin meeday Somaliland maxaa loo aqoonsan lahay xiriirkii iyo policy Soomaaliya inaga maxay naga galay Somaliland baynu u baahanaa ka sheekeynay istiraatiijiyadii ka sheekeynaya Mareykan danta ugu jirta dhaqaale noogama baxayo dantooda way wataan inaguna teena waynu wadanaa laakiin waxa cajiiba oo aad iyo aad u cajiiba marka siyaasadda laga culayska inta leeg in isku xidhmaan White House-kii oo ay siyaasadda u ku shaqeeya foundation-keeda ay iska leeyihiin qolayaasha marka lagu daro hay'adaha kale la shaqeeya hadday noqoto guddiga amniga qaranka hadday noqoto guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka ka hoose iyo ka sare labadaba hadday noqoto hay'adaha kale madaxa bannaan ee sida maaragtay Heritage Foundation hadday ay tahay hay'adii kale ee la kulmayay madaxweynuhu la kulmayay hadday noqoto waxa weeye safiiradii hore iyo kuwii ka soo shaqeynayay hay'adaas maaragtay arrimaha dibadda u qaabilsan Mareykan waxa soo dhan waxay ka dhalanayaan يعني عريسك وليه سفر كاس يصير مدحونها سومالي لأن يوفتي شيء تعطى وعاين وحا أينو هينو ديمقراطية نبتكليو يعني سومالي هاي ميل يسوى هاللين كرو ميل لا صاحب كرو ميل وحل يسوي درسن كرو وحل يسكو درسن كرو سيدا يوجد ترجمين نوجد ترجمين سياسة عنوان سومالي جيم كاي عياريسو بيوحنا ولا كذا شيء فيلم مايو فرصة نوكرة إنه يدبي نوصل مريسو haddii halka ay maanta ay taagantay aan hore looga dhaqaajin albaabkaasi waa furmay karkaana kardhe qodobkaana qodobdhe soo Soomaalidu ma oran jirin arintaasi waxa weeye waa kar inaga dhacay weeye inaynu deyr adag iyo xayndaab adag oo muddo badan aynu dubaha la ku garaacaynay inaynu marun ka talowno ama aynu ka takhalusno ama aynu ka gudubno siyaasad ahaan in madaxweynaha waftigiisu ay ka gudbeen arintaas oo message-kii ay wadeen ee ahayd Somaliland waa dal fursad saraanu noolay aqoonsi baan u baahanahay waxaanu samaysanay wacaynkan sharaxaad iyo waqti badan iyo history-gii Somaliland waqti badan ay gelin jireen maanta in message-kaasi ay qaadayaan xubnihii Mareykan waliba kuwii siyaasadda jaangoynayay hay'adihii qaybihii kala duwanaa ee dawladda Mareykan inay message-ka iyagu qaadayaan oo maanta inaynu inagu sharaxayno oo aanay noqonaynin wafdiga madaxweynaha ka dambeeya ee dambe iyo guddida technicalka ah ee la sameeyay ama technicality-goodu uu yahay sidii arrimaha loo sii amba qaadi lahaa ama madaxweynaha Muuse Bixi ka dambeynaya inaanay waqti badan kaga loomaynin inuu sharaxaad badan siiyo senator iyo haddii la idmaayo MP Mareykan ama hay'ad Mareykan inuu sharaxaad badan siina waqti kaga lumayo laakiin message-kii Somaliland ahayd inay White House-ka gaadho inay gaadho sharci dejiyaasha Mareykan inay gaadho wasaaradda arrimaha dibadda Mareykan iyo tagaashaandhiga message-kii shaqadii xukuumadda Somaliland ee waftiga maanta waxa wada oo halkii ka sii wada waa xirdajiyaashii Mareykan waa daneeyaashii Mareykan waa hay'adii kala duwanaa Mareykanka ayaa White House-kii la hortaagan Somaliland waa tan Somaliland waxaanu u baahanayna wax la qabsano Somaliland waa dal xora iyaga message-kii loo hortaagan oo gorfaynaya
oo ku canaananayo oo dareemaya iyaga laftooda inay dembi galeen maadaama waa ignore gareynayeen dal dimuqraadi ah meel istiraatiijiyad degan kafaya qaba argagixiso oo aan burcadbadeed joogin oo aan fidnada geeska Afrika ka taagan iyo guud ahaan qaaradda madow beri ka ah oo ah il iyo cadceed u soo baxday dhammaan duwalka Afrikaanka ama kuwa geeska Afrika ku nool ha noqdeen ama qaaradda madow ha noqotay oo ay tahay in waqti hore Soomaaliland iyo Mareykan ay ahaadaan dad asxaaba oo wax isku darsada oo isla jaan qaada marka guulaha ugu waaweyn ee maanta oran karayna waxa weeye wafdigaas madaxweynuhu istiil shaqadoodii dayo ku sii guda jira wasaaradii sheegay in qaramada midoobay New York ku sii socda ay tahay inay message-kii aynu inagu lahayn ee wasaaradda arrimaha dibadda ay millions dollars naga bixi jirtay ee u baahnayn loo yaro inoo loobin gareeya ee waqti badan aynu gelin jirnay maanta White House-kii waxa la hortaagan xildhibaanada ugu sii badnaadaan kuwa arrimaha dibadda gudiyada arrimaha dibadda ee Mareykan oo aan u kala harin haday aqalkii hoose yihiin ee Congress-ka iyo hadii ay yihiin kuwii sanadka ee guurtida oo ay lagu daray gudidii amniga qaranka Mareykan oo uu u yahay gudoomiye madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden marba madaxweynihii jooga ayaa gudoomiye waxa xogeeye ka wasiirka gaashaandhigga waxa ku jira wasiirka maaliyadda wax weeye waa iliidkii Mareykan hogaaminayay ba gudidii ay qaadayeen message-kii falanqeynayaan Soomaaliya wax loola qabsan karo taas waa ta keentay maanta in madaxweynaha iyo hadii aan leedmaayo iyo wafdigiisa siinay guul ballaaran oo aan ka hooseyn Soomaaliland dal inay tahay aan ka hooseynin inay maanta waxa weeye ay goolkaas iyo hadafkaasi ay Soomaaliland halkii ay doonaysay ay gaarsiiyeen waqtiga kan taasoo baan shacabka reer Soomaaliland inay ogaadaan oo ay ka warhayaan halka ay hadba xaalad marayso soo dhaw السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. أقويان قاعد بكون سلامين هذا. عادي أبغى هذا. هذا ما أنت جاب نقول فاس إلى هاي المكسية كحتى يدق الجريء إلى هاي مهندس كله. يا. وين. مرت هذا مدربية البدح على الجراحة يا ما في حي سبنا يقول لي كونفورت. من كونفورت ما هنا أفر فيه موتي فقط سعيد موت. يا فر سلامة استبوه تام. لأن هوي يقول هي سوماليلاند يكو سومالي ما يكو حكوا أي موت إن المنطقة كاي تاجلو أن هرمل كاي قادلو dadka walaalaha ay leeyahay ogol anigu soo dhaweynayna dadka diidana waxaan ku leenahay gidaarka madaxa la dhaca ilaahay Umar baadiidaysi waxana sheekadaasi magaalada la mariyay maanta mugti kuwaas meelaha kula sheekaysanay baqaxya shaqada ibn mugti way maxay lahayd waxay lahayd ilaahay Umar baarinta ka hor maraysa mugti oo diidayso wax arrimaha kala daadinaysa markaas hadda maanta ugu biigso waxay leedahay baarlamaankii laba waxa laga hadlayay maanta China iyo Somaliland wax kale laga hadlayba aqalkii sare ee Mareykanka ya aadiya marka inaad sharafteen maanta halkii gaadhi wada arkaysaa dhinac markaad ka yareegto waynu soo noqonaynaa tan saldhigan iyo arrimahan la saxeexay Somaliland haddaad ogtahay iska daad wadanka koowaad ee adduunka la gareynayay Afrikaanka madow markii uu tagay waxa loo yaro siyaasiyiin hore kharash badan bay naga bixi jiray sidii dal lagu sharaxi lahaa siyaasadda Somaliland halkay ka timid message-keenu ku daaray soddonkii sano ugu dambeeyay in baarlamaankii Mareykan oo labadii aqal ah nimankii wasaaradda gaashaandhigga ka socday arrimaha dibadda ka socday ambaasadoorradii hore iyagu message-kii la wareegay aqalkii cad la hortaagay arintaas miyaanay ahayn isbedel weyn oo Somaliland arrin mucjisa yamayna arintaas in qasab ay ku timido siyaasadii arrimaha dibadda waxaan galnimoodteena qasab ixtiraaf lagu raadiyo mood awal waan sasabi jirnay wasiir warbo arrimaha dibadda loo dhiibo sasabaad ahayd mood ma faat iyo dadaan bariyeen mood laakiin imika meesha bariyadu way dhaaftay caalankii iyada widaas amba against us halkii baalkii George W Bush dunidii xilli fiican doon musabix ku soo kor moogtay imiti marka oo de madaxtooyo uu noqday moogtay waana nin adag horta marka la eego moogtay oo qadiyadiisa aad iyo aad oo de warko holiga marka safaaradda dibadda maanta wuxuu dhigay nin isagoo ka sii daray isaga oo fadhiisanay isakeed
وأنا نسقنا فريسري إنه ده أنت أساس بلاد كم مقلام موت مريكا وكسر شقي موت سجيادي ما يفهم مركا حاوش إن ده حاول ما هذا عاير كنت بدي موت ده قاعد ده هيستاني عاير واحد كنت من دور ده مقرنسا يش كمان في شقي واحد كمية من واحد كنت من ده هارد ورك فاهم مثلا اللي كنت من ده مركا تاسي الحمد لله ما أنت هكا وكرم ما أنت مدحوينه إنه ماشي هو قصر رئيسا إلهي ما كي نقول لكم بدون موت هي بدن قدام مدحوينها مريكا لكم بدون موت إنه قدمت نورت محايتي مركا جوه رئيسا إنه قدام مريكا كمان شغالين إني دن ودن كلا قدمت نار النصما وهي بيكوز وادي قارك هي ودي مريكا هالكل دقيقة موت مريكا لفت جيسو أم بدي ولاك بيكون قريسا احتراف كيسا بفها موت متخير قبل تسا يوكرين وكلا يوكرين بيتي أنت دبي استاجين بيعلق كجبح صدق عادية مركا قلت تدمت لنا كفكرينا سومال الآن موت يعني بس اللي نقطة ما هذه احتراف نقطة ده أم بدي بعمشري نقطة ما يفات دمت سومال الآن ده هو البتول وهي هدو تلا ما يكون أنتوا كسوقلوا هدو تلا جد يجيبوا موت السيفر وور ماشي موت السلا نقولنا إنها فراغمنتد وهالكي أدنى فراغمنتد بنا قلنا السلا كونفورتا أو قويلي يحورك ربحنا مركا يلو حوق ضد الناس يقال مرة من الموت يرمين جداه عادي وي هذا الكي مدحوينها we have no strong army we are not economically strong but we are proud arrinkaas madaxweynuhu saxaafadda adduunka oo dhan baa qoraysa ma hayno ciidan military ma hayno ma oraahda meesha uu ka ahaa uu soo jeediyay Mareykan xarunta foundationkaas uu ka lahaa economically ma nihin strong haday noqoto ciidan adag ma haysano we have no baaragtay strong army laakiin we are proud waa ku noqotay mucjisa ku noqotay boogta horena wada weyn wasiirka khaarijiga Taiwan wuxuu ku yiri yani orahahana ay soo qaadanayaanay madaxdii wafdigaad hadda ama Taiwan ha joogeen iyo Taipei ama Washington DC ha joogeen oo Mareykan ma xiisayn Soomaaliland la xiisaynaya mise waa aragtida rasmiga ah ee Soomaaliland ka turjumayso ay ka turjumayaan hadalladan ay ku hadlayaan wufuud waata rasmiga way inaad maxay u xiisayn marka miidiyaha adduunka khaasatan ku horeeyay galbeed هو الرجال بيك وهو اللي بيلصق علينا على السماء انت صدق ما يجي الموت انت صدق بس ردوني يعيد ولا بيسيا اي انفورميشن هو هي بيبقى هنا لما يلا كلا فرفوري كرينا هي سومالان هنا تاي ميل dadku موتي dantoodu ay aad uga adag yihiin ay mowqifka Soomaaliland ay aaminsan yihiin ma fahamtay marka qof walba bada inaad qiim u leeyahay بيعمل هو سكين هو كورنيا هشيس ميليتري فايده بيس كان هو فايده يرس ولا الهاي قيم wax walba qiim u leeyahay maanta hadii baabuur bari hore soo baxay aan ku dhiibo oo dukaanka ugu horeeyay ku ilaamo oo baalkan waa baali ka tag ويبقى $50 بكرين في يوم فرفورية إيه هدا تكتيد موت ميد ديلر أو ده بابرود روح كولكشن كوسرية وكرادا الله مليون مكاسي سنة هذا أغلب على كي تجيسها أي بصعب مثلا كذا سوق هذا مركا وح سومالي لما أنت قفك قيميسة قفل سوق قيمية كده جنب طيب وسوق سوق موت مركا ينوس ما أنت سيف عم سوق يبيني ناين هذا مثال مركا قيمة هني مرة من واحد يروح موتي شيء بدي يدي واحد يلا ما عرفت إيش دور مليون وما تدين أنت أفكر لو قليها دو تقول له قرار كبح موتي واحد لا شغيستا واحد موسى هذا الكيس أنا كسرت الجواسي دي هذا الكون كهذي موسى يا سكوكا صار ربع إني موتي وذا شقيسي وذا موتي ما فهمت حتى أنت أصلا كمارة موتي ديني وحسن هو بهني ضد لا شغيسته بزنس كيجي وحيالها هيجي هرمون كيجا نقعد قبتنا بهنا مو بهني موتي هي بلو يا والله بكن كنت كان بليوني موتي هذا طلع عيارو بيحب أو إنترناشونال بانك موتي مضح نبرجبر نقو ودنك مرة من تن سجبوتي كل ده كيس جايسين على اعتراف ما هيستان أي كنت زي إنترناشونال موتي كوميونيتي وحرمنا أنه الصومالي مرة من موتي إنترناشونال كوميونيتي نقول لكن هم مضي مدرسين أو ما ذكر يكون تلنيا تو إنه قاعدين نقول تلنيا كأنه أي برواقة كله ليه مرنا
إيه ما يفهم سما قيمين هو كاس ولا absolutely هذه يا واي صليت بالتالي سؤال فائده انت اللي بقول جرتي كلتي هذيك والله فائدة waxay ugu jirtay faa'iido waxa ugu jirtay kulli lacag way ka qaadanayaan arimaha tababarna dadku way siinayaan ma fahamtaa marka hadii saldhig haduu faa'iido there is no problem manayku meel walba ku leeyahay qadar buu ku leeyahay sacuudi ku leeyahay abu dhabi ku leeyahay saldhig ma fahamtaa wadanada islaamka oo dhan buu meel walba turkiga ku leeyahay hubkii weynaa haysa mooti marka anigu taa arintaa dhibaato uma arka mooti jabuuti buu ku leeyahay mooti ma fahamtaa marka hadii kalsooni China ku kalsoonaan waayay moogtay in Djibouti agti in Ismail isla degan marka inuu halkaas kaga soo halkan saldhigiis ka dhigtay moogtay waana meel istiraatiijiga inagana faa'iidada ku leenahay dekedda berbera iyo horumarkii moogtay nidaamkii iyo difaaciga iyo safety-geegi uu nagala qayb qaadanaya waagar iyo corridor-ka inoo maray baamshirka inoo socdo moogtay ilaa Ethiopia way deked ay dhisanayaan ciidamadu si khaas u dhisanayaan ciidamada badda ee Mareykan baa ku jirta heshiiska dekadaas miyaanay faa'iido wahayn waayo maanta ciidamadeena baddu ma laha deked ma laha waxay isticmaalaan dekedeenan commercialka ama tan ganacsiga isticmaalaan oo dadooyaha ku xidhaan dadooyaha yaraynu hayno in saldhig military oo ciidamada badda Mareykan leeyihiin oo deked caalami ah oo maraakiibta Mareykan waa dogtay insha Allah يعني فائدة وين واحد بتاع مستقبل كعيدمة النبض. ويقول له إحنا الدولة اللي بتجيجا ما خلينا عين هذا الإكتيد وحي فائدة أصول هذا هاي يعني قال له أشغل بنقلي عنصر بين علي موت يا وحيقول له هنا هذا أنا كل شيء جاي إذا ما ويقول له هاي دقالها يدل كميشها يكد ثانيا دقن دقالة فربنا بس سوق الليل هتحتاج شراب يعبتان يحتاج كمريضين وحياليه النموتي انت سوق الناس بقى صباحيا بالبن انت القوي ماشي في بيسيت على هجيله وحول بقى everything يا روح الله انا هجيله ما اسكرت برين ها وين واي يا واقر نفقد يدد الموتي عديد تلاقي انه ماشي على هنا يسجل تيجي سنقول له فين هين مالها كان عالم كله الى يهودا يهودا انا هجيله ويعباني واي يا واقر مكان يا مكان واي هذا اللي يدمايو واحد جرتا وزيرka arrimaha dibadda Dr. Kaid Isa Kaid marka waftiga madaxweynuhu uu soo dhameystay safarkiisa waxa uu safar ku tagay dalka Canada oo laga yaabo madaxweynaha Soomaaliland inuu safarkiisa labaad ama lugtiisa labaad u noqoto Canada Canada iyadana inkastoo isku policy yihiin Canada iyo Ingiriiska Mareykanka wadanka la yiraahdo Australia New Zealand halkaasina albaabka loo furmay soo muuqato عادي البابك لكن انا وصومان ان دولتي المضمه كلها هنا هذا مثلا يمكن بتشكي اللي نقدر بي انجليزكا اللي يرسو صحيحه wax ali waxay dawladdu ka qabatay ma jirtaa arintaas wada nibanti iyo ay dadkii ingiriiska joogay ka taageertay laakiin wasiirku deegaanka ka waaweyn buu ku mashquulsanaa arintaas waxay diasporaha reer ingiriis inay iyagu islaamin gareeyaan wasiirku ma qaybsan karo waxaad ogtahay jalwadka madaxweynaha ayuu safarkiisa weydii ka ogaa ilaalinta protocolka madaxweynaha security-giisa jalwadka maaragtay cidda uu la kulmaayo wuu mashquulsanaa waqti adag bay ku soo beerantay oo loo diyaar garoobayo bixitaanka Mareykan marka arintaas waxay ahayd dadka diasporaha iyo jaariyadaha Somaliland ee reer Somaliland degan Ingiriiska inay shaqada qabsadaan wasiirku imse qof buu noqonay ما يودي إلى هذا الدولة وهذا اليوم الدولة دور قرب الله هذا اللي وحين نجح عاوين كل رين جميع عاوين موت يا واحد فتالف تيجي دليل وين لقطعين هذا الموت من الحوينا هلك قصة يصير بتيجي كان واحد سيريسا وجامي ويلي بسال لقوط حاجة ريو وده قد يدي ماشي ميس كله ساري بقولكم إن الجول والقرع موت يجدد كي جار كي وحول ببالله رموتي كاره ساعة واحد كل مين له ويجي دي الموت ويك ولا في كل مين له واضح لكن دي وحول بالله سميه إن الضبط صعد الموت معها عفوا الموت لكن بس واحد صار صعد والله فرنكرا واحد كفر كرتان كن قف بكفر ما
waa qori kartaa online waa dalban kartaa maaha wax mar walba guide oo dad dhimanaya maaha kun qof baa loo baahayay oo application ka diri kara codsigaas marka file waa la furi karaa anytime waa la furi karaa laakiin imika petitionkaas waxaa loo baahan yahay another 6 months kale petition kale ma dhici karo waa garta ilaa 1 year saasa ku qorneed warqada aan akhriyay mooti haddii kale marka kale waa kan naga xibay mooti laakiin waynu furi karaynaa because wax warwar inaguma hayo qolka kunun in la sii meel la sii dhigo weeyo dadku sabablaan laakiin la sugi dawada wasaaradda arrimaha dibadda hawlo kale qaban kartaa dadku waa inay qabtaan may wasaaradda arrimaha dibadda waxyaalo fara badan ay qabato guulo ay soo hoysay taaliftiga guul ay soo wasaaradda soo hoysay ahayd mooti ilaa halkan waan iska fadhinaa anagu horaan u furi karayna mooti may fahanti marka tan kale Canada aan ku noqono Canada laftigeegu iyadu mooti kulli dikadiyo uma rabtay laakiin dhaqaale iyadu teedu waa dhaqaale waa tan Ingiriiska oo kale way may fahanti marka iyadu waxay rabtaa inay mooti kulli Canada aad waxay ugu han weyn warshadaheega mootay waaweyn malmalkiyo iyo waxay qandaraasyo ku rabaan maxaa la yiraahdaa ii sheeg fooxa dhowr warshado waaweyn oo cadaradii waxaa sameeyay mooti oo wuxuu si distributionka Mareykanka u geeya caafimaadkiisa ayay rabaan inay qandaraasyo la saxeexdaan si aniga la sheegay mooti oo gacanta laga geliyo mooti suuqa loo xiray marka shirkadaha ugu waaweyn ee shidaalka soo saarana inta badan waa Canadian sumo warugan xagga khayraadkana waxa weeyeen ay maal gashada suuragal weey inkastoo Taiwan oo Mareykan xagga dambe ugu dhuumanayo iyagu shidaalkii soo saarayaan 2023 ceelkii ugu horeeyay daloolay صح ilaahay wax khayr la yani ilaahay wax khayr la saaranyaada rato hawadu way fiicantahay meefant waxa ka baqaya inagu afka isla wada galno mooti aan istirno mooti markay macaan iyo waxaan dhamin mooti gaajada walaalo ku hayn baan ayaad u malaysaa marka waxna soo galaan waxa ka baqaya in daaqada iska wada baxno mooti soo dirno sidii Nigeria هذا مفهمت marka hankin magaajadii 3 sano wali isaga fadhilay maalintu ilaahay baabada noo furo anigu taan ogahay waxa weey moogtay habarbayna habarta kala moogtay qoriya ugu horeeyay ogahay moogtay ana laga badsaday moogtay wala laga badsaday marka insha Allah ilaahay khayr ka dhigo moogtay diba guul balees meel walba joogtiin maanta siyaasadda beel fiican bay noo maraysaa haddii ilaahay raad sare jaamaca batish koon dib aan u furin doonaa haddii ilaahay raad ka laftigay kama hadin in kastaan ka xumahay inaan siiro aayaro naga dhintay kaasi mooti wadaal aan gelin mooti qof walba dib iska shaqaysanaynaada noloshiisa iska wataa hada qofku ma baahno inuu meel kale laptopkiisu furan kara computerkiisa telefoonkiisu ka buuxin kara marka gudiyaduna waxa weeye ha bilaabaan insha Allah guriga aad joogaan 10 qof way karaysaa oran karaysaa inta linkiga u dirto buuxi نعم كايغا دمي markaas wala weyn Soomaaliland ma taageersana maxaad ku oran lahaydeen ya ma taageersatay Soomaaliland majal musiibada aamin dadda Soomaaliland oo noolata dadda Soomaaliland istastoy haye waa ku faraxsanaa anaga aqoonteed waxa musiibada farmaajo Soomaal adiga maqlayde afar qof baa Soomaaliland diidan mo ninka walaalkay Maxamed oo nin hawiya manin la neera ya way inoo guriyin بيبات يقول لك تقول والله شقينا ولا تنمون كذا شقينا يا عادي شرع سبيشال رسولنا مركا خير بني تجيني هذه ضمنات ثانك يو يا ثانك يو ثانك يو عادي ابو معسي هي ما سومالي عد والبا وسومالنا wax ku darsanaysa qaal iyo islaam oo soo dhaweerina cid bas Soomaaliland cid Allah la inay cadaawad u qabto siyaasadeed iyo mid dhaqan mid diimeed idin ma jirto kuwa Mareykan ee cadaanka ah ee Soomaaliland maanta albaab walba u garaacaya diinna ma wadaagno dhaqanna ma wadaagno midabna ma wadaagno laakiin aragti siyaasadeed iyo dan adduunyo ee ayana midaysay marka cid walba oo Soomaaliland karaameynaysa war soo dhaweerin khaasatan Soomaaliya qolooyinkii halka joogay siyaasi Soomaaliya ka soo jeedaan khayr ka sugayeen waayo waa nin dantiisa ilaashanaya
ninku hadduu political position interestkiisu yahay macna badan dee inagu wada ka firi mayno Soomaaliya wax badan ka firi mayno saliid iyo gaas ka soo bixi jiray Soomaaliland ka taraysa ma jirto warshada ay Soomaaliya leedahay oo intay wax soo saarkooda Soomaaliland ku nooshay naga xidhayaan ma jirto awood ciidan oo dhinac walba naga fadhido anytime berbera duqeyn karaan oo burcad duqeyn karaan oo ceerigaabo duqeynayaan oo hargeysa duqeynayaan caasimadana taasina ma jirto dad educators ama scholar ah ama aqoon ay iibinayaan oo aynu u baahannahay ma jirto IT iyo system iyo technology Soomaaliya ka timaadana ma jirto ay naga xidhanayaan waxa ka iibin jiray muus buuha muusku inta dhexda soo sidaa qurmi jiray hada fahamta muuskina hadar waynu beeranaaba wax kale ka yimaada garamay ambihina way naga beerana maxaa ka yimaada Soomaaliyadii ba maanta gaajunaysa more than 2.5 million baan nutrition u baahan maanta website waxaad gashaan hay'adda cuntada adduunka FAO waxa gashaan hay'adda cuntada adduunka tabeeraha gala FAO waa la yiraahdaa ta cuntadana gala WFP gala dhamaantood waxay ku leeyihiin 2.5 million Soomaaliya baa u baahan ayaa emergency case ku jira because waxa dhacay disaster weyn baa dhacay abaarayeen kaara dhacay biyo qaar u diiday qaar cunto diiday marka Soomaaliya filmaayo wax naga xinaaba ma jirin siyaasi Soomaaliya regardless tribe-ka uu yahay ama qabiilkiisa macna badan inaga nooma sameynayso reerku dowladda ka soo jeedo laakiin dadka Soomaaliyeed ee halkaas jooga ee hawiyele ee daarood leh ee dir leh ee raxweyn leh ee jareer leh ee digi mirifle leh ee bashinguli leh ee muxuu ahaa qoraykii loo jiray muxuu ahaa baajuun leh ee haddii la idmaayo reer goleed leh dhammaantood cid walba oo Somaliland proud ku ah inaynu helo aqoonsi oo dadkaas u soo dhaweeyeen laakiin nin siyaasi opposition fadhiya khayr ka rajeeyeen mara ka sugayno waayo bir hore isqaban lahayd waad ogtihiin inta madaxweyne soo martay Soomaaliya intaynu nigu Somaliland ahay malaha mid ugu yara daacad Sheekh Shariif buu ahaa filay Sheekh Shariif Sheekh Hamid isnadu iska xiri ugu kitaab xoor buu siyaasadda galay markaas uu iska dawaqnaa dhinaca Soomaalinimadii baa kaga jirtay iyo xirownimadii dhinacna aqoon darro siyaasadeed baa haysay hadduu siyaasi buuxa yahay oo dhaqankiisa iyo diintiisa ku kabi lahaana bari hore oo la wax Soomaaliya way aqoonsantay laakiin isagoo access baa weyn siiyay oo ahayd wax way balinayno at least miiska isugu iman karno oo negotiation ka geli karno arrimaha aynu isku haynay ee Soomaaliya oran uga hambalyeynayna isaga waxna taariikhda uu galay abaalkaana waynu haynaa Sheekh Shariif laakiin wixii dambe ka dambeeyay dhamaantood waxay ahayd nuxuus kudkude iyo kutaan nacab oo qulubtooda ay buuxisay jiritaanka iyo qaranimada Soomaaliya aad iyo aad uga soo horjeeda dhamaantood way wada ognayd waxa kale oo inagu inoo kala saafur maanto inoo kala soocan dadka Soomaaliya jooga inaanay isugu keenin ahayn beesha hawiye la yiraahdaa Somaliland kuwa gudaha jooga anuma sheegin mana ogiyo doonayna beesha laakiin dadka diaspora ah beesha hawiye ka soo jeeda 99% waxa ay taageersan yihiin inay Somaliland dawlad noqoto kuwa meelaha ku jira eega kuwiina darisyada idin la eega kuwa meelaha ka wada shaqeysana eega dhamaantood beesha hawiye waxa isku raacsan yihiin in Somaliland ay dal noqoto wara gobonimo taa bedelkeeda dhinac kale ka eegayayo beesha daarood kuwa gudaha joogida waa inagu waxa weeye wax marqaati inagu filan dhul bahantay iyo warsingeli dhamaantood waxay ka soo horjeedaan Soomaaliland dhamaantood kuwa gudaha dibadda joogada habashigiiba geeri bay u tahay haday Somaliland dawlad noqoto wiil daarood oo jigjiga ka yimid ayta kuwii Soomaaliga aan garanaynay gaarisay uu jeer ka yimid iyo ma jidhe iyo qoladii dhameeyay ma jeedeen iyo wixii halka day qolooyinkii 0.5 ka daarood ahaa ee darbi daarood iyo wixii la sheegi jiray inta carab saalax iyo wixii aan garanay dhamaantood waxay leeyihiin iyo mareexaanka ilka yaryara dhamaantood iyagu waxay taageeyeen Somaliland dal noqon mayso oo daarood oo ka midaysi wax kalena uma diidana believe me
daarood wax kaloo ma diidana waxa kaliya mideeyay ka wajeer iyo gaarisa ka yimid akuna mataato la cunaya maaragtay muufada ama kan amxaarka iyo Tigreega iyo Bashanguli iyo Gomus iyo Uraagada iyo qorada la yiraahdo Oromadu haysato in isaga xorriyad haysan oo Soomaaliland u diiday wax kale ma ana idin sheegaya waxa weeye Soomaaliya labadii state isu tagay ee loo jiray Spirit Somaliland iyo Soomaali Talyaano ama Muqdisho iyo Hargeysa marka la eego numberka populationka labada state ama labadii gobol ama labada dawladood hadii Soomaaliland goodo minority bay ka noqonayaan Soomaaliya maadaama ay Soomaaliland minority ka yihiin daarad ma aqbalayo laba dawladood oo Soomaaliya oo ay minority ka yihiin ma aqbalayo waayo hadii Soomaaliland la aqoonsado warsangire dhulbaanta kula jooga waa minority baa laga badiyay hadii Soomaaliya la yiraahdo Soomaaliland way ka tagtayna afar mareexana iyo yaro ma jeedheena inta sadex joogta waxaan kale darbi daaroodi waxa la arabsaray waa shan qof way kuwaas marka hawiye iyo raxweyn iyo dartii meesha joogtay way liqayaan marka halkaan minority bay ku noqonayaan laakiin hadii Soomaaliland laga sii laalaado oo labadii state joogaan Soomaaliland ay ahaato daldalaada lagu hayo the prime minister bay qaadanayaan ama madaxweyne noqonayaan marka minority ma majority-ga marka la eego hadii sida cadaaladda rasmiga loo oranayo hawiya ugu badan isaaq waa ku xiga daarad baa ku soo xiga today hadii union la wada qaato madaxweynuhu hawiyu noqonaya because koonfurta yaa ugu badan hawiya ugu badan waqooyiga ugu badan isaaq baa ugu badan marka isaaq baa prime minister ka iyo madaxweynaha waxa isku bedelaya isaaq iyo hawiy marka iyagu maxay soo fariisanayaan gudoomiyaha baarlamaanka hadii doonaan raxweyn baa ka badan marka meelahaas ku meeraysanaya gudoomiyaha xigeenka iyo gudoomiyaha aqalka sare iyo meelahaas ay fadhiisanayaan marka mar imika waxay ku faa'iideen maadaama Soomaaliland iyadu isaaqi ku mashquulsan yihiin dawlad la helay dawladii soo celiyay chance iyo gaab bay heleen political vacuum kaas wuxuu sameeyay inay empower gareeyaan awoodoodii ummadda ka dhaadhiciyaan daarood iyo hawiye because policy-gii baa lumay qaybtii iyaga meesha ka saar lahayd baa maqan hadda way la garatay markaas Soomaa marka daaway baa wiilka daarood u diiday in Soomaaliland dawlad noqoto wala taa maskaxdina ku haysa maskaxdina taagri dalku waa two states jamhuuriyadda Soomaaliyeed عليكم السلام جمهورية الصومالية two states bay ahayd state beel isaaq la yiraahdo ugu badan hadii dir la yiraahdo dir baa ugu badan wada ciise iyo samroon iyo isaaq dir bay noqonayaan iyaguna daarood minority bay ku noqonayaan Soomaaliland koonfur hadii la tagana dirtiina way kaga sii horeysaa hawiyo dhanna way joogaan marka halkaana minority bay ku noqonayaan marka marnaba daarood ma ogola Soomaaliland oo dara believe me lama soo hiray laakiin hawiyo wax qoray Soomaaliland ha waa isagu dhul buu leeyahay نيجيل لي تكما وروري نمبر لك مورورو هذا فاهم لكن بيرت هذا كله شو هذا ترى هذا بير كلا صغير وروري خصوصا هو أما تذكر أو بير لما واحد كتر سنة ده إنه صفر سنة فاهم زين مرحبا مش كده هايستي السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أرجور أتمنى سلام يا هذه أتباع هذه سيدنا أكتر هو إسكاش كم اللي تريجي الشمال لان يو مريك والله وحي wanaagsan soo kordhay askaashigaas kamid yahay oo khayr wadanka u soo kordhay weeyaan traafkana day muslimin horta ilaahay baan atraafay oo waxa weeye kaasi dad badan baa inagu mashquuliya way waa ka go'ay kaas wala daa soo qabto وحق يسافليه بس حقيقة اللي ذيك جرتها وافليه وحقيقة افليه وكاغو اي كسو وريكونكشن ku soo qoray anigana xil dambe ito waan yara adalka yara gabay marka waxaan ka wada Soomaaliland wax kasta oo ma garanaysaa wadankan qarankan u soo kordha ama Mareykan ha noqdo ama mid la mid ah noqdo ama kay maga taagan ha noqdo waa guul soo kordhay weeyaan
taasi waa tan waa gudaheennana waa iska mayno waa minor waa iska hagaajin doonaa taad sheegtay horta waa saad u dhigtay weeyaan ta Soomaaliya horta meeshan haddii la isku noqdo waxa weeye meeshan xildhibaandeega la una xisab kuwankiini ayaa gabay meel uu ka tiriyay wuxuu yiri horta meesha haddii la isku noqono uu dhanban jaraal ma xiri daarooda amba hawiyoon ba meeshaas ka noqonaya buu dhibada waana xaqiiqo ku qaaday markaa ma ogtahay marka inaga iyo ka isku noqono Soomaaliland horta waxa ogaatay inaga hor marka si wax inoo yaala ma jiraan oo xagga ma garanaysaa وقرص حلك أمبا مقارنة ساي ما سبصرة إلى نقادو ماشان لبر غير وبا مقارنة سامبا لا يسكون قدام بالا كلوجيا يومبا ماشان Soomaaliya وغير كوية يدارو ليرا حاسين وحوي ينو ما كوي نلقيا سري خرابة ينول لقينا وينوجي هنا إذا خرا ينول لقين لكن إنما اللي قينا وحوينا الله قيبسن هذا نقول هاي ترى ضدك صراحة هذا اللي قيبين لها تو ستيت لأننا واحد يبني حساب لام بين الله إنما اللي هذا تو ستيت كهذا هاي majority كيساق وقوي marka iyaga baray mushkilka leeyahay koonfurta waxa majority-ga waa hawiye meesha cidda meesha ka baxsan waa daaro taas aad keenaysa daaradina waasho marka waa point-ga waa degdegtay point-ga waan soo waday runtii meeshan waxa weeye markii Soomaaliya ay xorooday horta shaqo Soomaaliyeed meesha ay markii hore in dub yar noqono shaqo Soomaaliyeed waa la yaqaana waxay Somaliland doonaysay markii Soomaaliya la isku biirayay magaalada saayjoodigan iyo waxaan oo dhan u sameeyay waxay shantii Soomaaliyeed in la isku keeno dadkan midna taayna aad fahana weeyaan inay Somaliland shacayl gaarinay nagu dhaxin koonfur isir gaarana isku maayno waxaan qolo gaarana isku maayno waxaan bay ahayd midnimo Soomaaliyeed oo shanta Soomaaliyeed meel soo wada keeno marka Jamhuuriyad Soomaaliya saasa lagu wada sameeyo tii riyada barigaad inagu jirtay waad ogeyd halkii ku dambeysay iyo fashalkii ku dhacay saddexdii kale Soomaaliya maanta waynu aragnay halkii taagay Djibouti waa taasoo waa Jamhuuriyad gaar oo ilaahay baan de nagu beerin bay leeyihiin berigi wixii ku dhacay saaqwaanu aragno iyagu ku xamdinaqaya kilalka shanaad halka waa ka taaganoo Ethiopia iyo halkaas uu ka mid yahay NFD way naga artayna inaga waxa weeye marka la yiraahdo Soomaali weyn kelmadda la yiraahdo horta waa been wax Soomaali weyn la yiraahdo ma jiro Soomaali weyn hadda maqashid waa shanta Soomaaliyeed oo isku timaada Soomaali weyn la yiraahdo halkan laba state baa israacay waa waqooyi iyo koonfur midna Talyaanigu gumaysanaya midna Ingiriis oo gumaysanaya weeyaan waxa israacay isku biiray marka hadday markii berigii horeysay magaranaysaa la isku biiriyay talada inaga xumaatay oo isku jiba dadka ay soo caadifado saan hore u soo sheegay Soomaali weyntaas ay dadku iska wada doonayeen laakiin haddii wax kala qoran lahaa oo meesha laba state baa raacay laba state loo qaybsan lahaa hadii madaxweynuhu koonfur noqdo prime minister kuna waqooyi wasiirka arrimaha dibadda koonfur noqdo magaranaysaa arrimaha guduhna waqooyi sida hadii loo qorin lahaa taasi naguma dhacdayna waxaad moodaysaa caadifadii aweeyasheen berigii amba dadkeenu beriga inoo joogay ayaa iltuufkii beriga inagu dhacay ilaa maanta waa tayna haysta waxaa loo jiray alfkii maxay ka xumaadaa albaqra kuma hagaago waa alfkii ka xumaadaa albaqra ku dhibaa hawaka wali alaanka waa tayna haysta aynu magaranaysaa maanta aynu magaranaysaa iyadoo 60kii Afrika xoroodiya ka horba xorooday maanta aynu ictiraaf doonayno 2022 aynu ictiraaf doonayno mushtaaq dhacay iyo khalad dhacay oo ahaa dadkeena hore ee iska magaranaysaa jibadii Soomaali weyn ku haysay ayaa magaranaysaa khaladkaas sameeyay tiiba marka wali alaanka inagana haysato horumarka iyana maanta caalamka kamid noqonay waa inoo diiday waxaan u socdaa marka kelmadda dadka lagu qaldo هذه الشيء اللي سووا سكرية Soomaali weyn shantaas shantina way fashilantay waa laba gobol baa soo haray waqooyi koonfur labadiina wixii ka dhacay waa digo ogaa dadkiina waxba lama kala qoran maanta waxa weeye marka Jamhuuriyadda Somaliland maama waxay ahayd marintage maxay ahayd Allah hadda marka labaadna istagana ana istagay adu wax saas ahayd maamaad ma ogtahay marintage Allah hadda mar labaadna ana istagay وكاسي وإذا وانا ما هذا الكلام واحد سوالي كنا وانا ونقول بيني ودنا نقول حمان شري وروح نقول إذا قال أنتوا صورنا في سوالي لا بكسو أنا وصل على رجوع الرو مامتا قرنكا ودورة ما نقول تاس وانا حلا هذا دعنتي إنه كتير مامتا وحوي ينا جاوه هي أدوى وحوي مامتا وحيابها نحرينا وحيلات هاي وحول لقيه بسم دونا تاسي وحول مسيحة وحيلنا ودحدنا اسكو هاينا واسكمينا لكن تنقرن كأي خارجية تسوارين هذه مهمة
haddaad imaka social media iyo waxaan imaka aad marka nin ku jiraad adigu tabarragii nin ku jiraaba tahay waa adiga arkay dadka sida had iyo jeer ma garanaysa Somaliland halkay ka taagan yihiin say u qaada dhigayaan maxay ahayd nacaybka runtii ay muujinayaan wuxuunba muhiima inaynu inagu dhexdeena isku tiirsanaano isku duubnaano waliba horena marka waan ku dhaarweero hadday beesha dhexe ayadu waxaan ku isku tiirsan tahay mid dawadeed iyo mid gudaha kugu mucaarada baa noqdo waxlaala wax magaranaysa qarankan cid wax ka qaasaba jiro laakiin anigu maalintan qaranka Somaliland u naxaa runtii warwarkay galaa waa maalinta beesha dhexe isku soo jeesto waayo de waa la fagri wala isku jeediyay hore loo yiri marka waxba beesha dhexe waxba kaba dhaxayaan oo tii hore loo yiri isaaqin inkastoo isku maada ama isu gumeeyo ama uu geel ka qaado gundaha hoosiyo gudaha waa ka walaabiya meel oo ka taga u soo qaar baa inta ka faa'iideysanaya darago aragtay ma dad baa ka faa'iideysanaya waxa ka magaranaysaa kursiga la kala riixanayo ayaa hadda jeerta isku xudheeyaan waxaan arkay iimaanood islaan mareexaan oo dharka tuurtayo garaajeesa oo ka cawaalaydu gubeeyay anigu anoo mucaarada anoo gadna xaajisa anoo ciida galaaho oo kursiga doonayana qabto haddana markaan meelahaas kale ku jiro qarankayga waa inaan u geeliyaa waayo waa in magaranaysaa ay qofka u kala soocan tahay ta magaranaysaa qarannimada Somaliland iyo tamaaragtay gudaha yara soo kawana u kala soocan tahay taa marka waxaan la dad Somaliland dhammaan laga wada doonayo qof qaarna laga ma doonayo reer gaarana laga wada doonayo inta qarankan ictiraaf filayo oo caalamka kamid noqonayo waa mas'uuliyad shaqo oo dhan wada saaran inay wada difaacaan inay nacabkiisa sokeeyana kala ogaadaan inay magaranaysaa ay ninka waxa la ninka ku xiirayo ninka ku horhoolayo waa inaad kala baratin marka dadku maskaxdooda waa inay yara ballaarato inta ka ballaarato waanay mararka qaarkood ku soo koobin waxa yaraan meelka hoose tii weynayd ee nafiya maalba loo soo huray ma garanaysaa waayo haddii Soomaaliya jirin waxba la isku qabsadeen ba waxaan iyo dhan ay isku riixanayaan waa qarankan ay sameeysan marka hadduu kan meesha ka baxo waxa weeye waa helag riyaad baa ku soo haraya oo nin waliba waxaan ku orin marka ma garanaysaa aan wax u tiray marka waan xilli damana way tahay dad badan way ku jiraan haddaan soo gabagabeeyo wax kasta oo qarankan soo kordha waa guul weeyaan wax kasta oo ma garanaysaa ay tafaraaruqa iyo dowladana la iska ilaaliyo dadku ma garanaysaa runtii wixii ay soo mareen iyo waxa ku xeeran ee badan ee run doonaya inay ma garanaysaa in maalin uun arkaan meeshan oo kala daadatay taana waa inay u toogayaan aadna waan ku salaamayaa mararka qaarkood waxa weeye tayara hoose in laga talaasulo weeyaan oo taas sure guud ee qaranka runtii dooda lagu sameeyo iyadoo ma garanaysaa mar walba topic uu kala duwan yahay marka aad iyo aad baan ku salaamayaa aad iyo aad baad mahadsantay thank you السلام عليكم. عليكم السلام. وانا كسلان تايرة مريحان او طلاي وارياده وارجر حاج سوكا كا ورواليدين قبي يلا اسلام مريحان والخير انا ركاي كرحاج سما بروريس waxu بروريسا كي دودر كاي فلا امروها كي بروريسا ما كرحاج بروريس waxu بروريسا waa wax weeye waa kacaanki waa baroraysa iyo ka la yiraahdo farmaajo la yiraahdo eedida u tahay bay u baroraysa garxas lugta ku darsanaysa garxas goor mareexan noqday taanu ma garanayo nimanku waa wali reer Soomaaliland oo isaaq weyn waxna waa diidayaan waxa ka caban karaan laakiin daaroodu caban maayaan laakiin way ka qaldantayo waxay aragtay qaar day waa shibay aragtay adaamis salaanta ayr weyn arag laakiin markii hore inuu dambi galay dambi baynu gallo dambigeenu gala waxay ahayd dad aynaan isku luuqad ahayn oo aynaan isku lahjad ahayn oo aynaan isku dhaqan ahayn oo aynaan isku siyaasad ahayn sidii madaxweynuhu sheegayay oo aynaan isku mentality ahayn oo aynaan maskaxdaynu si wada fikrin baynu waxa weeye wax ku darsan boowe iyo baay iyo bala ku cayaarnay baynu wax ku darsan waxaanu wax ku darsanay unukaale unukaa kale reer may fagaas umara naar galo intii bal ummadaasan wax ku darsan ya qaar kale oo inaan garanay ya qaar kale oo inaan afkaranay 1900 iyo 60 markii statesku ay isu tageen ama ay dawladda sameeyay waa islaamka waxa la Hargeysa ka tagtay magaalada Hargeysa la yiraahdo markay ka tagtay waxa dhacday dadku berigii hore xididnimadu way fogaan jirtay
family halkaas oo muqdisho jooga bay u tagtay marka malaha muqdisho iyo malaha reena kaga xawati berigida halkaas waxa weeyaan ka iskuul galay xagaas u tagayay ka taysar oo baa halkaas u tagayay ka shahaadad doonay xagaas u tagayay ka jaamacad doonay xagaas u aaday marka ay tagtay reerkii markay la furtay casarkii wadan shaaha iyo wax la wada cabay guriga la soo fariisto dabeetna markaas caruurtii islaanta waxa la yaaban tahay dadkan lahjadan ay ku hadlayaan iyo luqadan ay ku hadlayaan markaas waxay tiriyeen caruurtii markaa dhageysanaysa anuga baaquliga keeno xaqada keeno daayo wahay islaanta way yaabtay ma ummadda maahe waxaan ay ku hadlayaan maxay iyadoo la yaaban bay maalintii bay su'aal weydiisay waxay tiri waxaan weydiiyay rasuulka ilaahay maxaa u taqaanaa horta walaal islaanta waxay ka sheegay xagga diinteena iyo ku kala duwan markaas waxay tiri rasuulka ilaahay horta maxaa u taqaanaa markaas islaantii waxay ku leeyihiin intii u yimaadeen aad qosqosleen nabi allah ma ahano islaantu inna lillahi wa inna ilayhi raaji'un وهذا هو يسكن النبي يسكن دين بينه النهاية أفكي ما حد كذا نهاية باقول حاقه ما هي عايك وحياة سرية برهرت أمة داسين وحكو درسن هو حين كل عني ملك جديدين وذيك أركاين ما تمريها دكتين وحكرنا الله عرّ ماي أمة دي وحوي دتك واطوس هو اللي يسكن فهمي وحي أدون كان هو حكي ترتاح قوانين يشروع majority rules minority rights هذا تاوي تيكا عرريا نما كان دارو نوح كلامه واي تاسو majority قاعد rules كيسكله لكن rights كوا حيسكله minority marka meel walba wax way xaq iyo xuquuq baa loo raadin doonaa su'aalaha haday dawladda yeelato ursangali iyo dhulbahanta intii nagala joogtaa the rights bay u baahan because waa minority rights majority rules ka yeelanaya because isaaqasi majority koonfur hadii la tagaa hadhow toolo dawladda gaar ah Soomaaliya sida ku tahayna tii waxa weeye hawi majority ayaa the rules kiile daarada markaa waxa weeye rights ka in la ilaaliyo saasay noqonaysa marka wax kale ka carrimayaan waa inta kuwa halkaas in kaga tagayna guulaha Soomaaliya ay gaadhay ee hadda radin muuqdaana hadda meel laga soo qaban karaa ma jirto qayliya habaartama mid waasha mid waxa weeye malaa'igta iska kaxeeya mid lahjada bedesha mid baroor ku soo gala mid oohin ku soo gala mid habaartama cid Allah wax ka qabanaysa maanta cid wax ka qabanaysa ma jirto interest-ka adduunka Soomaaliland daruurihi interest-ka caalamka dawladdu waliba danbay ka leedahay daruurihi baa dul taagan waxay daaysana waa la garanay waxaan ictiraaf ahay daruurtaas diimayso Soomaaliland maanta halka ay maraysana waxaan filayaa in qof kasto aqli leh ama inuu wax u baxsan yahay ama aqligiisu dhinaca positive-ka u fikirayo ama garan karo qiimeyn kara sida Soomaaliland hadda ay ku socotaa waxaan filayaa inuu dareemi karayo in Soomaaliland maanta dal xor ah tahay markaad aragto fursadaha siyaasadeed iyo dawladnimada hor yaalla markaad aragto istiraatiijiyadda iyo deegaanka Ilaahay buqcadda uu dhigay markaad aragto albaabada ay garaacayso cidda ay la fariisanayso markaad aragto super powers iyo soo kala dheereynaya waxa clear ah oo aan cidnaba dah ka saarnay Soomaaliland maanta tahay dal xor ah guuleystay gudihiisina dhisay adduunyada boqolkiiba boqol wax perfect ma jiro way jirayaan dhaliilo gudihii way jirayaan waxyaabaha ay haydeen hore u qabanno ay maaragtay ka gaabinay waxyaabo badan waa jiraan laakiin waxaas maxay imanayaan Roma maalin lagu ma dhisin maalin walba wax baa la saxayaa tayr baa la rogayaa gudaheena wixii naga qabiyaana waa kordhinaynaa waa korinaynaa waa saxaynaa faa'iideen wixii adduunyada ay hore inay ahayd inay noo qabanana waqti kale wax kale naga mashquuliyeen haddeer dawaynu u jeesanayo waxaan filayaa inaan wax badan haddeer qaban doono haddii la yiraahdo laakiin waxa Ilaahay mahadiye sodor iyo laba sano haddeer kadib Soomaaliland aqoonsigeeda gacanta ku hayso inay maanta samirkii ay qabtay ama ay ku dhaqmeeyeen ee ahaa bal horta inagu aynu isku tashano bal aynu state wax u eg ama dawladnimadaanu dhisno waynu dhisnayo state-kii maanta structure-kii dawladnimada dhan buu leeyahay waxa kaloo aynu culayska saarnay bal peace building-kii inaynu qayb ka noqono oo aynu inagu bal boqcadan iyo deegaanka Soomaaliland la yiraahdaa inuu noqdo mid stable ah maanta waa kaas waa alxamdulillah rabbil caalamiin
وماشى بقعد كلية وقول نبضون جودهان أفريقيا كان نبضون وضمك على يوروب تمات تشوفنا سؤال لما خنا وضم believe me والله يوروب سويهري مثل العقب ما كتلا لسويريس سؤال اللي أنا ودي كاركاي ذهب يوروب تبدأ يلا هي الميس بانك سكيورت بايلالنا سومالي ويوروب تاسوي لا يراهدو ودمada qadiimiga ama waxa weey ilbaxnimada gabowday baa la yiraahdaa Yurubiyaanka ilbaxnimada gabowday weey baarankooda lixda galabnimo way xiray waxa ilaalinaya waa security kamarada ku wada xiran hadaba fahmaysaa Soomaaliland wadi ka arkay islaan aan askari ilaalinayo tamar aan lahayn taasoo caruura ka timid baa dahab suuq bartankiisa la fadhiyo inan baa waxa weeye lacagtii yuuradii bawnkii dollarkii shilinkii Somaliland tii maxaa Ethiopiankii mid walba suuqa ku haya waxa laga yaabaa inuu $20 miiska hortiisa u taalo waxna aanu ka baqay meel ka dhacday adduunka ma jirto wadankan bishii inta ku dhimata siday doonaan baa ku dhinteen iyo crisis-ka ka dhaca ciidaas ka badiyay Somaliland waxa halkaas waxa lagu leeyahay 6 bilood baa mar halkiis dhacay ama laba kiis dhacay oo dila هذا قرطي صوما وأن معيك إلهي نسي ولا شكرتم لأزيدنكم ولا شكرتم لأزيدنكم بإلهي نلي بخواكم هذا نغنى فلك الحمد بينه لنا إلهي وذيك المهلد وقول يقول إني باين وقاني يوحوي يوحى إنه دينك قبصني مركزتين يتدالنا إلهي إيجي مايو ووضنكم قيمة إنت عسكر وحيستو إنت وحوي نقال وحيستو انت aqoonyahan u haysto diinta u haysto ma ku qiimeeynayo laakiin qulubteena waxa ku jira sida shakhsiga insaanka ilaahay ugu qiimeynayo waxa qulubtiisa ku jira acmaasha uu sameeynayo ba as a nation ay noo tahay practical sunnatul hayaa ay noo tahay wana qawaacid sunna ah oo taala oo xaqiiqo oo nabiyina maxamed sallallahu alayhi wa sallam noo sheegay oo ahayd in allah la yanduru ila ajsamikum ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وقاعدة رسمية وضمن وعين كاسو إلى هيدري ولا ترى كمان كنقول يركع هيستي هذا هو فيرسو كنقول يركع هيستا إياه كان أن أكل فوري سواك أن صو صار كرين أما قلني عندك كيس كسو صار قيمين ما يومد كله لما تطبق ليس ما سمين العدالة ما سمين استنى الله يكون كله بدبادة واحد إلهي خيالي كيه مسمي قال الإسلام كادون تهو لكن هذا أمد بدبادسو وأمد فرها كقاطو وأضلك هذا كنكتب بقعد هذا ميل قوة النورادو وكإسلام كيكون نوران كرو وككلاي وحوي قال كيكون نوران كرو عاد ماشي هذا كنكتب إلهي وحوي وإيجيا كاسة تسير كويس وهي كلاي حسابه كنا يعذاب مالك كروي ويوم البعث لكن أدري إلهي وحنقول قيمين من قف يقرن وهي قلوبتنا كتير شقدين وسيد الرسول كان ينبري معلم كي أدون كان إلهي صوتري إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وهالك إنه تعجد بكا إلهي وحو أركيا أرن كينيون التوحيد كنجم إلهي وحو أركيا هدي الله يدما يو دستور كيني فونديشن كيني دين الإسلام كنجم إلهي وحو أركيا دد كيني ودولة نمادي يوهم كاسوي وضاعتك نمد قليل يقول إلى شناي marka ilaahay dawlad jasideedii way nasiiray kaamisan hadii aad xoog weyn tahay oo qurux badan tahay oo kaliyeedan tahay ilaahay tan inuu toona kaamal hadaa daciif tahay oo gurguuranayso ducriyad tahay oo qalbigaaga iyo niyadaada waxaad ilaahay raali geliyo aad sameynayso ilaahay waxa kugu qiimeynayaa oo maaragta ee qalbigaaga ku jira inkastoo aan aqoonsi hayn oo inaan tabar lahayn inaan ciidan xoog leeyahay oo inaan diyaaradeen migag lahayn oo inaan maraakibada quusta lahayn وأنا ورشة وحصو صار لهاي حتى وحا أينو هايسنا human production ka aynu hayna aynu iibinayna waa waxa aynu qabsanay hadda waa garatay Soomaa barnaamijkii caawa intaas ayaa ku soo gabagabeynaya maalmahan idaacadu waxoogaa marka qaar lead bay soo gashay horey kuma soo sababtana waxa weeye maadaama Ramadaan soo socoto odayguna uu dalkii u socdo oo meelaha doonayaan ku soo soomo shaqooyinkii ay waqtiyadii maaragtay inta badan habeenkii yar badan yihiin oo night shiftiga aan galayo inta badan waxa weeye oo preparation kaas iyo xagga iyo wadankii
ayaan idaacadda xogaa gaabsku maalin dhaweydna yaroo mushkilada baa nagu yara qabsato technicala arrintaana dad badan oo la balogreeyay waan arkay haddii alla idmaayo waxyaaba aan idaacadda maaragtay dadka muwaadiniinta ku xidhan aan u fiicnayn oo lasoo dhigdhigayna waan arkay laakiin inqilaabka aan dhig ku daadan waynu ka gaadhnay markiiba idaacadda waynu soo celin waan ka raaligelinayaa ciddii kale ee la balogreeyey waa ka qaaday u sheergareeya dhammaantiin waxaan kaga tegayaa tan iyo barnaamij kale oo xiisaleynta inay isugu iman doonno salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu